nin hadduu ku rabo ha ku guursado hadduu ku rabin boyfriend uma qalantid gaaladii waxay dhahoostaa uma qalantid boyfriend heer waxay gaarayaan ay ku soo publish gareeyaan magazineyaasha adduunyada ugu waaweyn sida Vogue oo kale ee dhahayaan having a boyfriend is embarrassing is cringe alhamdulillah for Islam alhamdulillah ana muslimiin ah wax fiican idinahay oo very interesting ah Vogue ayaa waxay soo saartay article waxay dhaheen is having a boyfriend embarrassing وكذا تقانين وماجازين وين محاكونا وحيالا بدن سو publish قريان research ما أهلا لكن waa very interesting articles دمرك قربها جوجين دبدها جوجين أدون وينها هذه هرمرسان أمريكان كيو western world كهدلو يا ayaa waxay taagan yihiin inay maanta afkooda ka soo baxdo ama inay social media hooda soo galiyaan I have a boyfriend ama ninka isla soo sawiraan sawirka ninka lagu ku arko inuu boyfriend yahay waxay dhahaan waa embarrassing is cringe having a man iyo patriarchy is the new not to do thing gaalada ayaa waxay taagan tahay boyfriend in lagu sawiro adiga gabarnimadaada ceeb iyo sharaf darro kuuga ah dumarka heer waxay gaarsiisan yihiin social media haddii xataa ninka uu sawir kula jiro inay wajigiisa ka qariyaan sawirkaaseeto not because dada ka masarsanay waxaaseeto but because iyada nafteeda ka ashashasa ka yaxyeexeeso ayadoo gabar ah oo qiimaha yaseeta leh oo shaqaysato oo wax barato oo heer sare dumarnimada ay gaarsiisan tahay in ay isku sawirto boyfriend nin dhahayo boyfriend kaliya ku noqon kara wax kale kuma qaban kara boyfriend ku noqon karaan gaaladii hadda waxay dhahoos ash gaaladii dhifaq noqota akhas ku jiraan boyfriend is cringe is embarrassing imagine anaga waxa saatana lagu soo kariyay marka ko gabar yar marka ay shukaansanaysid Islamic studies ama dugsi ama meel maxaa lagu dhahayaa nin hadduu ku rabo ha ku guursado and this is the same thing hadartan dumarka oo western world ay hadda soo kacayaan ee dhahoyaan haddii ninka ay guursanaynin ama uu husbandkayga ahaan what is the reason our boyfriend kan inta askugu sawiraayo is embarrassing waxay taagan yihiin is embarrassing gaalada akhas ay taagan yihiin adiga maxaa taagan tahay adigoo muslim maxaa taagan tahay meel gaalada akhas ka dhahoyaan